halkan waxaan idinkugu haynaa 5 shay oo isticmaalaan dumarka caalamka kaasoo halis ku keeni karo caafimaadka shakhsiga. Aan idin diyaarinay 5 shay iyadoo digniin u noqonayso dhammaan haweenka isticmaalo. Daba si fiican u dhuux adiga ma isticmaashaa waxyaabaha soo socda kuwaasoo dhibaateyn kara caafimaadka shakhsiga. Fadlan like-ta hana hilmaamin aad noo dhiirigeliso. Maadada koowaad ee aan soo qaadanayno waa bootarka loo isticmaalo inta waxaa ku jiro bootarada qaar maado loo yaqaano talc powder ama budada talkiga badanaa waxaa ku milan asbestos wax la dhahayo 20%. Haddaba tani asbestoska loo yaqaano si fudud ayay maqaarka ugu milantaa waxayna keeni kartaa kansar loo yaqaano mesothelioma, kansar ku dhaco maqaarkaasoo dhibaateeyo jirka bini'aadamka. Haddaba waa inaad iska fiirisaa waxyaabaha aad marinayso jirkaaga si aadan halis u gelin nafsadaada. Qodobka labaad waxaan ku soo qaadan doonaa maadooyin ama daawooyin loo isticmaalo in lagu dhaqo xubinta taranka dumarka ama vaginal wash. Daawooyinkan waxay ka samaysan yihiin kiimikooyin loogu talagalay in ay beddelaan pH-ga acidity-ga xubinta taranka dumarka. Haddaba tani waxay saameyn ku yeelanaysaa bakteeriyada aan sunta lahayn taasoo ku nool gudaha marinkaasi waxaana ku badanayo fungal growth ama koritaanka fangaska ku dhaco xubinta taranka dumarka kaas oo si laba jibaari doono infekshankii jiray wuxuuna keenaa cuncun ku dhaco xubinta taranka. Qodobka saddexaad waxaan ku soo qaadan doonaa hair remove ama kareemka loogu talagalay in timaha lagu xiiro. Kareemkan ayaa waxa uu ka kooban yahay triglycolic acid maado loo yaqaano taasoo ka mid ah maadooyinka halista ah kuwaasoo jirka dhibaato gaarsiiyo wuxuuna ku jira liiska daawooyinka aadka looga digo ee dhibaatooyinka badan keena. Haddaba ka digtoonow khatartiisa. Qodobka afaraad waxaan ku falanqaynaynaa daawooyinka lagu kalareeyo ama lagu midabeeyo timaha. Daawooyinkan ayaa waxay ka kooban yihiin kiimikooyin kuwaasoo u gudbi karo qaybta dhexe ee dhuuxa timaha ayna ku keeni karaan xanuuno fara badan. Sida aan wada ognahayba daawooyinka waxaa loo qaybiyaa 3 nooc oo si ku meel gaar u baaba'o, waqti xoogoo qaata iyo kuwa si joogto ah ugu yaala timaha kuwaas oo aan baabi'in ilaa ay timaha ka baaba'aan ama ay gurmaan. Dambe ayaa ugu halis badan caafimaad ahaan. Qodobka 5aad waxaan ku soo qaadanaynaa waxyaabaha cidiyaha lagu midabeeyo, cidiyaha la saarto iyo kalarada la mariyo iyo waxyaabaha lagu siibo gaar ahaan maadada acetone. Maadooyinka looga shaqeeyo cidiyaha ayaa waxay ka kooban yihiin mid ka mid ah 3 sun. Sunta koowaad oo ku jirta waxaa loo yaqaanaa toluene waana haraadiga batroolka loo yaqaano gasolinka midkaasoo keeni kara halis caafimaad. Sunta labaad oo ku jirta waa formaldehyde maado caan ah balse waa sun. Maadada saddexaad oo halista ah waxaa loo yaqaanaa dibutyl phthalate maado kaloo halis ah. Haddii aad ka baratay waxyaabo cusub dhowrkii qodob aan soo sheegnay fadlan like saar muuqaalkeennan siina share garee gaarsii bulshada kale iyo dadka kale si ay ugu faa'iidaystaan. Haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir subscribe dheh.